Boqorki, Degaha Dameerka Lahaa. Sheeko Somali. beri waxaa jiray boqor leh dhego balaqsan oo u eg kuwa dameeraha. wuu ka xishoon jiray dhegihiisa oo inta badan wuu qarin jiray. Qofka keliya ee arkay Degaha boqorka waa timajarihiisa. Waxaan kuugu ballan qaaday haddii aad sheegtid sirtayda inaan xabsiga kugu rido inta noloshaada ka hadhay, ayuu boqorku ku yidhi timajarihii. way ku adkaatay timajarihii inuu sirta boqorka ilaaliyo. wuxuu doonay inuu dadka magaalada ku nool uga wada sheekeeyo dhegaha boqorka. laakiin wuxuu xasuustay digniintii boqorka. wuxuu sirta qariyaba maalintii dambe gabadhiisii ayaa aragtay in timajaruhu dhibaato qabo. maxaa ku haya? ayay ku tidhi. miyaad xanuunsanaysaa? sir culus ayaan hayaa, ayuu yidhi timajaruhu. waxaan yeelo ma garanayo. haddii aan sheego sirta, xabsiga ayuu boqorku igu ridayaa. gabadhiisii waxay ku tidhi, war meel fog tag oo aan cidi joogin. hog dhulka ka qod oo sirta ku daboo. sidii buu yeelay timajarihii. intuu godkii qoday ayuu afka saaray. wuxuu ku dhawaaqay, boqorku dhegaha dameerka ayuu leeyahay. boqorku dhegaha dameerka ayuu leeyahay. markuu intaa yidhi timajarihii, wanaag badan ayuu dareemay. dhibaatadii haysatay ayaa ka yaraatay. sannado badan kadib, iskuul ayaa laga dhisay meesha godka uu ka qoday timajaruhu. godka agagaarkiisa meel carruurtu ku ciyaarto ayaa laga sameeyey. maalin maalmaha ka mid ah, carruurtii oo ku ciyaaraysa goobka ciyaarta ayaa wiil ka madihii daboolka ka qaaday godkii. codkii timajaraha ayaa ka soo baxay godka oo leh, boqorku dhegaha dameerka ayuu leeyahay. boqorku dhegaha dameerka ayuu leeyahay. carruurtii aad ayay ula yaabeen waxay maqleen. waxay u sheegeen waalidkoodii markay gurigii tageen maalintaas. magaaladii oo dhan ayaa isu sheegtay. dadkii way ku qosleen sirtay maqleen. waxa la wada ogaaday sababta uu boqorku madaxa u duubto markuu meel dadku joogaan u tegayo. boqorkii ayaa maalintii dambe ogaaday. wuxuu ogsoonaa in nin keliya ogaa sirta dhegihiisa. askar ayuu u diray guriga timajaraha. way soo qabteen oo waxay ku rideen xabsiga inta noloshiisa ka hadhay. timajarihii boqorkii ayuu baryey inuu sii daayo. boqorku wuxuu yidhi, waxaad iigu ballan qaaday inaad sirtayda qariso. waan ku aaminay. inta noloshaada ka hadhay xabsiga ayaad ku qaadanaysaa. waxaad baran doontaa in ballantu ay muhiim tahay in la ilaaliyo. sheekadan maxaa laga baran karaa? sirta lagugu aamino badanaa waa inaad qarisaa, lama sii sheego. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.